kulan wacan daawadayaal halkan waa Channel Kuban News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah taliyaha nabad sugidda mahasalaad oo amar ku bixiyay in ilaalada laga qaado xildhibaan Cabdullaahi Kulane faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan safar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu ambaxay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo gabadhii ugu horeysay oo kusima madaxweyne ka noqotay dalka gudoomiye Cabdi Xaashin war cusub ayuu ka soo saaray maqaamka magaalada Muqdisho iyo Kenya oo shaacisay xilliga la fasaxayo qaadka ay u soo dhoofiso Soomaaliya qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka Channel Kuban News fadlan daawada hadda nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahino channelkan aragtidiina halkaas noogu reebo muuqaalkana sii share gareeya laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan taliyaha nabad sugidda mahasalaad ayaa amar ku bixiyay in ilaalada laga qaado xildhibaan Cabdullaahi Kulane sida ay u xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan Hubal News taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad ayaa ka hor inta uusan ka bixin dalka maadaama uu qayb ka yahay xubnaha safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu ambabaxeen dalka isku tagay Imaaraadka Carabta amray in ilaalada laga wareejiyo xildhibaan Cabdullaahi Kulane aadan Kulane oo hore u soo noqday madaxa shaqada ee hay'adda Nisa haddana ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha Nisa ee howshan fulinayaan ayaana sheegeen inay haystaan amarka agaasimaha oo bixiyay ka hor inta uusan raacin madaxweynaha kaas oo ah in dhammaan ilaalada laga qaado Masar Kulane lama shaacin ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa arinkan balse laba kamid ah ilaalada xildhibaan Cabdullaahi Kulane ayaa laga xiray maanta garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyagoo fasax ugu ambabaxeen qoysaskooda oo degan meel ka baxsan caasimadda Soomaaliya xogaha uu helayo Hubal News ayaana tilmaamaya in arimahan ay salka ku hayso laba arin oo kala ah in xildhibaan Cabdullaahi Kulane uu wato ilaalo badan oo kamid ah nabad sugidda Soomaaliya iyo waliba in taliyaha nabad sugidda ay gaartay caabasho ku aadan in Kulane uu dhibaato ka wada gobolka Gado halkaasna ay ku sugan yihiin xubno iskugu jira ciidamo iyo mas'uuliyiin ka amar qaata kuwaas oo maalmihii aanu ka soo gudubna qaadeen talaabo ay xubno siyaasiyiin ugu diideen inay tagaan qayb ka mid ah gobolka Gado waxaan la ogeyn talaabooyinka xiga ee uu qaadi doono taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo waliba sida uu wajihi doono xaaladda gobolka Gado oo ay degmooyin ka tirsan gacanta ku hayaan maamulo wali ka amar qaata garabka farmaajo geesta kalena faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan safar madaxweyne Xasan Sheekh ugu ambabaxay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta gabadhii ugu horeysana kusima madaxweyne ayay ka noqotay Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta kaas oo ku soo aaday kadib isbedelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay madaxweynaha oo ay weeliyaan xubno kamid ah Villa Soomaaliya iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa garoonka ku sii sagootiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo mas'uuliyiin kale sida ay shaacisay Villa Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa casuumad rasmi ah ka helay dowladda isku tagay Imaaraadka Carabta oo maalmihii ugu dambeeyay dadaal xooggan ku bixinaysay siyaasadda Soomaaliya si ay ugu dhawaato dowladdan cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadal la yeelan doona madaxweynaha dalkaasi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ay ka wada hadli doonaan arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka labada dal oo aad u hooseeya sanadii la soo dhaafay safarka madaxweynaha oo 2 maalmood qaadan doona ayaana ku qotoma xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududeynta isku socodka ganacsiga iyo sare u qaadida iskaashiga labada wadan ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay Villa Soomaaliya booqashadan oo tii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib doorashadiisii 15 May in Imaaraadku uu meesha ka saaray Qatar oo 5 sano la soo dhaafay ahayd taageeraha koowaad ee dowladii uu hogaaminayay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo madaxweynaha hore casuumad rasmi ah ugu fidiyeen dalal ay kamid yihiin Sacuudiga Turkiga Kenya iyo Djibouti oo la filayo in uu mar safar ku tagi doono safarkan ayaana ku soo aaday iyadoo madaxweynuhu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare kaas oo la filayo inuu madaxweynuhu horgeeyo baarlamaanka federaalka si uu u helo kalsoonida codka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale xildhibaan Saacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda ee kusima madaxweyne ka noqoto Soomaaliya kadib markii uu maanta dalka Imaaraadka Carabta u ambabaxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Saacdiya ayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxayna fursadan heshay kadib markii uu isna shalay u baxay safar dibadda ah Sheekh Aadan Madoobe oo gudoomiyaha golaha shacabka sida uu dhigayo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya xildhibaan Saacdiya ayaa dalka ka talinaysa inta uu midkood soo laaban doono madaxweyne Xasan Sheekh ama sidoo kale
gudoomiye aadan madoobe. haweeneydan ayaa baarlamanka ka soo gashay Puntland waxayna hore u noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ku guuleysatay ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. arrintan ayaa dhalisay hadal heen xoogan waxaana isla markiiba sawirada Sacdiye lagu baahiyay baraha bulshada ay ku wada xiriirto iyadoo aadna loo hadalhayo arrintan. halka dawladda odayaana kala socotaan waa janalka Hubaal News. gudoomiye Cabdi Xaashina war cusub ayuu ka soo saaray maqaamka magaalada Muqdisho. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamanka dalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo khudbad kooban ka jeedinaya kulan ay yeesheen golaha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan maqaamka gobolka Banaadir. Cabdi Xaashi ayaa shaaca ka qaaday in aqalka sare uu ka kooban yahay 54 senator balse ay ka maqan tahay magaalada Muqdisho oo uu tilmaamay inay tahay mid muhiim ah. gudoomiyaha ayaa xusay in laga maarmaan ay tahay in la cadeeyo maqaamka magaalada Muqdisho si ay xubno ugu yeelato golaha aqalka sare ee Soomaaliya. aqalkani wuxuu ka kooban yahay 54 xubnood. tiradaasi ma ahan tiro sidaasi ahaanayso gobolka Banaadir oo muhiim ah ayaa ka maqan oo ay tahay tiro in ay ka soo gasho oo waliba labada aqal ay tahay laga maarmaan qodobka 9aad ee dastuurka sida uu leeyahay in maqaamkii caasimada labada aqal ay soo sameeyaan ayuu yiri Cabdi Xaashi. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray taa micnaheedu waxa weeye xubno ayuu ku yeelan doonaa gobolka Banaadir aqalka sare laakiin hadda waa 54 xubnood inta dhisan. hore baarlamanka Soomaaliya ayaa u meelmariyay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho golaha aqalka sare waxaana kadib saxiixay madaxweynihii hore ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse go'aankaas ayaanan dhaqan gelin kadib doodo xoogan oo hareeyay doorashooyinkii soo dhamaaday 15 bishii hore ee May. si kastaba maqaamka magaalada Muqdisho oo muddo la isku hayay ayaa wali cadeen iyadoo haatan ay soo dhamaatay doorashadii Soomaaliya ee muddada dheer soo socotay. waa hagaagii daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Kenyana waxa ay shaacisay xilliga la fasaxayo qaadka ay u soo dhoofiso Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa mar kale faahfaahin dheeraad ah ka bixisay halka ay marayaan wadahadalo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee lagu doonayo in lagu fasaxo qaadka dalkaas oo sanadihii la soo dhaafay ka xayirnaa dhanka Soomaaliya. wasiirka beeraha dalka Kenya ayaa u sheegay wargeyska The Star in qaadka ay Soomaaliya si rasmi ah u fasaxi doonto 5 bisha soo socota ee Julaayo ee sanadkan 2022. mas-uulkan ayaa xusay in heshiis ku aadan qaadka ee labada dowladood ku saxiixi doonaan magaalada Nairobi oo ay iskugu tagi doonaan madaxda labada dal. 5 Julaayo ayaa heshiiskan lagu saxiixi doonaa halkan oo ah magaalada Nairobi ayuu yiri wasiirka beeraha wadanka Kenya. sidoo kale wasiirkan ayaa ka gaabsaday waxa ay dowladda Soomaaliya ku bedelanayso qaadka dib loo fasaxayo oo ay Kenya ka hesho dhaqaale fara badan. Soomaaliya ayaana ah suuq weyn ee loo soo dhoofin jiray qaadka laga keeno dalkaasi Kenya. Soomaaliya ayaa hore dhankeeda shuruudo waaweyn u hordhigtay dowladda Kenya waxaana kamid ah arrimaha ay dalbatay oo ay doonayso in loo fuliyo 1 ku biiritaanka ururka bulshada bariga Afrika, 2 fududeynta safarka iyo 3 dhoofinta kalluunka. dowladda Soomaaliya ayaa qaadka hore u mamnuucday gaar ahaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. taas bedelkeedna waxa ay fasaxeen qaadka Itoobiya oo ay dalka keenayeen dad isaga u dhawaa siyaasad ahaan iyo ehel ahaan intaba waa sida ay tilmaamayaan xubno kala duwan. si kastaba arrimahan ayaana ku soo aadaya iyadoo isbedel siyaasadeed uu ka dhacay Soomaaliya kadib doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh 15 bishii May ee sanadka 2022. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii oo aad kala socoteen janalka Hubaal News. fadlan daawada haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim oo ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka janalka Hubaal News.